xilli qaybo ka mid ah deegaanka Dadaab ay ku soo badanayaan falalka amni darrada ay sameynayaan kooxo burcado jidadka gala oo ganacsatada khasaaro dhimasho iyo dhaawacba u geysta ayaa waxaa arrinkaasi si kulul looga hadlay siyaasiyiinta deegaanka Dadaab. mudanaha laga soo doortay Dadaab Maxamed Daahiye Ducaale ayaa ugu horreyntii ka sheekeeyay muhiimadda nabadgelyada bulshada u leedahay iyo dhibaatada laga dhaxlo nabadgelyo darrada. walaalayaal Soomaalidu waxay dhahdaa nabad baa naas nuuga leh soo saasmo nabad haddaysan jirin wanaaggan isan looma fadhina ummaddan hadda qaxootiga noola joogto meelo kale ka imaadeen laakiin waxaa meeshan ku qasbay inay meeshan joogaan meeshay ka soo jeedaan amni ma laha amni hadduu jirin socdaal ma laha waxbarasho ma laha dhaqaale ma laha dowlad wanaag ma laha wax kasta waxba kama jiraan. wuxuu dowladda ugu baaqay inay furto xuduudku dalku la wadaago Soomaaliya. horta runtii aniga waxaan leeyahay warkana dowladda Kenya inuu gaaraan doonin markastana waan ka hadalnay haddii la rabo wanaag lagu afjaro arrimahan amni la'aanta ka jirta aagan horta xuduudka hala furo custom iyo immigration shaqadooda ha qabsadaan wixii wax keeni meesha ha soo maraan wixii waddanka soo geli meesha ha soo maraan annaga aan ogaano waddankeena wixii soo galahayo iyo wixii ka baxay haddii xadka la furin arrintana ma dhammaanayso dadkana ma joojinayaan inay raadsadaan wax beec yar because shaqo ma laha soo saas ma covid baa jirta hawl shaqo ma laha hay-adihii waa iska kawraxeen dowladda waxba ma hayso dhibaatooyin badan ba dadka markaa waa inay noloshooda ay raadsadaan siday ku maaran lahayn soo saas ma. mudanaha ayaa digniin adag u diray burcadda jidka gasha laamaha ammaanka ayuuna ku amray inay tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan kuwa dadka dhibaateeya. wiilashan ku jiraan jidkan dabadheer kulli waa la garan xisaabtooda waan haynaa waa 28 ruux baa lagu yiri oo kulligoodba awliyahan ah waxaa lagu yiri qoysaan ku jirin ma jiro waxaa u weyn ninkii dilay aabihiis horta nin aabihiis dilay iyo wax u tari oo wada taagan nin kasta wuu dilay aniga dowladda waxaan ka codsan waana la kulmanaa amniga waxaan rabnaa wiilashaas inaan siino waqti amni si baan weydiinanaa inay qoryaha soo celiyaan inay hawshan ay ku jiraan ee ka dhex baxaan haddii laga dhex bixi waayo waxaan codsanaynaa security operation oo meesha ayada dadkaa laga soo saaro si macnaha arrinta ayada ee nooga daba dhamaad runtii mayla qabtaa arrinta ayada ya ugu dambeyntiina shacabka ayaa ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan tacadiyada ay geystaan burcadda dadka dila dhaca ee dhibaateeya wuxuuna intaasi ku daray aniga arrintaas ayada waxaan rabaa inaan annagoo dilba hal muuqif aan kiisan nin qori wato oo wada taagan adigana waxba kuma talahayo qoysna waxba uma talahayo islaamkana uu kugu diri dhulkan aan deganahay ilaahay waa nagu manays waa dhul fiican laakiin haddii maalin kastaba dad aad disho oo hooyo ay oodo oo walaal u ooyo oo aabbo u ooyo soo inkaar maaha runtii soo inkaar maaha arrinta ayada horta waxaan rabnaa inaan soo afjarno raggan qoryaha la taagan oo ka dhigteen macnaha inay lacag ka helaan arrinta ayada arrintana sababteeda u muhiimsanna waxaa weeye xuduudkan xiran oo loo diiday inay wax xuduudka rasmi soo mari. Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Star Dadaab.